Nimco Cumar Ibraahim waa gabar Soomaali ah oo si qasab ah ku guursaday askari Ugandais ah taas oo igu gol lahayd in ay aabaheed ku badbaadiso. Aaga saddexan inaad igu bilowdo. Magaceeda saddexan waxa la Nimco Cumar Sheekh Allah. Waa tahay marka daadaadu waa imisa Nimco? 24 sano jira. 24 jir baa tahay. Waa tahay dadka qaarkood waxay daadaada ku sheegayaan ilaa 19 20 sano. ma jiraan 24 sano jira. Waa tahay magaciisa ninkaasi wiilkaad u dhashay. Magaciisa runta Siiso Joshua Allah. Siiso Joshua. waa tahay marka daadiisa imsaad ku qiyaasi kartaa adiguna? aniga daadiisa ma qiyaasi karo. adiga daada aabaha kale aha company xoogaa jir waa hagaag. haddaba haddii aan ku weydiiyo Nimco sidee ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan idin dhex maray? xiriirku wuxuu ku bilaabay aniga dhakhtarka aabaha ahaa wuxuu yiri maxaa la hadii aragtid inaad ku daaweeyo aabaha inuu isbuuc ku jirno in maxaa la aad ku guursado. waa tahay marka ma isbitaalku madax ka ahaa mise ciidamada isbitaalka joogu ahaa mise dhakhaatiirtu ahaa mise kalkaaliyu ahaa? horta ninku marka hore muxuu ahaa? aniga ciidamada ma kala aqoon xilli markaas toolo qof mashquulsan ahaa laakiin sidoo asii uu sheegay nin oo madax u ahaa oo islaamayo ahaa. waa tahay marka markii ugu horreysay isbarateen xaggay ahayd iyaa kula joogay maxaanad ku wada hadasheen? aniga isbuuc camal ku jirno oo ninkan wuxuu yiri maxaa la daawada intuu isii warqad orod suuqa bakaaraha ka doon. suuqa bakaaraha marka daawada ka doon waxaa la muqdisho dhan ma taalo Soomaaliya dhan ma taalo daawadaas haddii taalana waxaa la gadaa $150 ma laga helo daawada. marka u soo noqday oon dhahay daawada ma laga helo Soomaaliya waa ogaa yiri daawadaas inaan laga helin Soomaaliya ee oolin marka saa inaa aragtidan kugu diray. marka dhahay markaan dhahay warqada waa la igu dili gaareen nimanka al-shabaabka ah igu dili gaareen maxaa igu dirtay markaan dhahay wuxuu yiri inaa ku soo tasaal qaaditidaan rabi ani warqada aragtid. daawada aabahaba ayay maadaama uu xanuunsanayay waxa la yiri daawadan waa tii bogsiin lahayd isaga. daawada kansarka marka daawada magaceedii ma xasuusataa warqada wuxuu kugu qoray? أنا ما حسست أنا من أقون أملي داود اسمه إيدا. واتا مركا كسو ويدي سوقي بكارها إسقاط كسو نقطي وحكو يدوان وقايلانة كي. أسينا دبوا سو نقطة أسينا مركا كسو نقطة ويفير وقايل يرد إن داود عن أول سوماليا مركا ويفير داود عن واها يا ويري لكن هذا كسينا وشروط يرد مركا شروط بس أكثر بحزان كسينا مركا هذا شروط محاول ويفير وحاربا وير إنه قرصدو مركا قرصدان داود أنا وير عباس أنا مركا جور جديداً وفي يقرأ ورقد أم حل عن لغة بحناية هذا ومركا صوص هذا أم لغة بحنا بناكم لغة بحنا. واتا مركو كلية هاي وحن دونا يينا كوجور سدوا ما أبا هرتيسو كقول هذا لي مسمى الجارة تكتين. ما هي ناشة أو دقق وليج وعبرة وحسيس كيسة. واتا محد سكو فهميسين مركا لقديت كود هذا ليسين. waxaa jooga wiil Soomaali oo turjubaan dabeetana waxa tir warqad baa la soo saaray aabaha isbitaalka looga saarayo. warqadii aan la siiyay warqadii markii la siiyay wiilka turjubaanka wuxuu yiri maxaa lahaa ka fiirso hadalkan ninkaas wuxuu ku leeyahay iskayal aabaha bixinin markii dambana waa ogolaadaan. marka inaad ogolaato ma wiilka turjubaankuna qalqaalo uu ku galiyay si aabaha lagu saarin in ninkan aad guursato? waa tahay marka maxaa dhacay? markii oo aan yeelay oo ninkiina guursada aan yeelay daawooyin badan oo aad siiyay wuxuu u sameeyay baasaboor oo lagu soo qaadayo. guurkiinu siduu u dhacay? bal arrintaas aan doonay inaan ogaado siduu u dhacay guurku. wuxuu u dhacay ninka oo turjubaanka ahaa wuxuu keenay 2 nin oo maxaa la dhahaa Soomaali ah wuxuu yiri aniga muslim ma ahay waana guursanaa diinta islaamka guursanaa xataa wuxuu yaqaanaa quraanka yaqaanaa markii aan dhaano quraanka oo aqrinaayeen marna ku aqrinaya marna ma aqrinayo. waa tahay xagee lagugu meheriyay adigu? meeshu waxa tiri waa meel ciidan waana isbitaal. meel ciidan oo isbitaal ah waa meesha teendooyinka lagu meheriyay. marka meherka adiga markii lagu meherinay labada wadaad iyo ma ag fadhiday? waa ag fadhiday. marka raalli baad ka ahayd? raalli ka ahaan. waa tahay aabaha iyo familkiinu ma kula ogaayeen? maya lama ogeen familkeena maxaa yeelay ani aabaha intuu dhal ana weyn aniga go'aankaas iska gaaray si ugu hela aaba daawadiisa helitaankiisa ka sokow adigu soo gabar ma tiido soo xitaa sharcigii muu ahayn in lagu bixiyo ama haddaan aabaha joogin adeerada ama qof walaayadaada haya inuu bixiyo soo may ahayn? way ahayd laakiin ayta ninka turjubaanka iyo nimanka oo meherka sameynaya waxay dhaheen haddaa guur hore usoo martay oo ku mehersantaa ninkan. marka horaad sheegaa la guur hore ma usoo martay ayaan dhahay guur hore usoo maray. marka guurkaagii hore in suu qaatay caruurna ma ku dhashay? 2 wiil.
marka teendhadii baa lagugu dhex meheriyey teendhadii lagu dhex meheriyey ku dhamaan daawooyin fiican oo aaba siiyey iyo maxaa la dhahaa si fiican ugu dadaalay waa tahay marka intaanan dawada gaarin meherkaasi markuu dhacay dareenkaagu siduu ahaa ani dareenkay ma ku faraxsaneen waxa ii geysa waxa waaye daawada keliyaha la aaba rabitaankiisa marka ma aroor ninka ma ku faraxsaneen ma aroor baa lagu meheriyey qofaa taqaanidaa ku faraxsanta ma aroor baa lagu meheriyey mise galabaa la meheriyey dabeete maxaa dhacay markaa waxaan ma dhicin waa lagu meheriyey labis nimanka wadaadada lacag siiyeen uu siiyey asi iyo ninka turjuwaanka ahaa sidii ku bax marka adigu nimanka securityka oo meesha ka shaqeeya waxay dhaheen maxaa la dhahaa arrimaa jirta aan maqalnay intay securityka oo wax iweydiinay su-aal iweydiina asaa i imaada wuxuu yidhi wixii lagu weydiiyey waxba kama jiraan dheh waa tahay marka meesha lagugu meheriyey wadaadaday iska baxeen lacagtooda qaateen adigu ma ninkii lagugu meheriyaad la hadhay ood la joogtay ma meherka markuu dhaca hore ninka miiga tegin ani waxaa ku noqda aabaa ku noqda beriid kasoo ka dambeysay waa marka ii wacwaxaay marka wicitaankii maalmaha ka dambeeyaad kulanteen imise jeer sidaad u kulmi jirteen ninka marka ma meeshuu degan yahay baad la degtay mise kolba xeradu joogay iyo meesha isbitaalkaad ugu iman jirtay meesha teendhada oo daawada uu ku bixinaayo oo daawada markay cidlo ay noqotay iwici jira uu dhihi jiray imaam waa tahay habeenka aan diido oo ka indha adeego oon diidana wuxuu dhahaa sidii daawo aaba ma siin jirin marka anigoo qaxana aan inta raaci jiraa oo wuxuu rab iga samaysan jiray marka uurka waxaad qaaday intuu aabbahaa noolaa intuu aabba noolaa markaad aabbaha muxuu xaaladiisu ku dambaysay markii ninkii aad ka ogolaatay inaad guursato waxaad tihi dawooyin baa la siiyey aabbaha xaaladii aabbaha maxay ku dambaysay aabba xaaladiisa sida daawo hadday noqoto daawo fiicana la siiyey laakiin waktiga u dhinta aabba marka aabba wuu geeriyay ilaahay ha u naxariisto dabeete adiga maxaa kugu dhacay marka ani dhibaatooyin badan aan la kulmay dhinaca al-shabaabka soomaaliya waa tahay familkaaga markaad eegto adeerada ama habaryaraha iyagu ma ogaadeen in aad nin guursatay ciidamada amisom ka tirsan oo ugandhaysa way ogaadeen hooyo iyo walaalahay way maqleen maxay dareemeen marka hooyii markaa u sheegay arrintaasaa u sheegay hooyo igama xumaan hooyo waxay ogeed arrinta lacag la-aanta neesta iyo marka waxay dareemayeen in duruuf markaa jirta darteed aad u gashay arrintan waa tahay marka nimco xaggeed ku umushay marka maxamar baad ku umushay mise waxaad ku umushay kambala soomaaliya ku umulay imise jir weeye marka waxaa la ii sheegay inaad dhashay wiilkaaga waa imise sano iminka wiilkayga wuxuu jiraa sanadii 5 bilood jiraa waa tahay marka dee reerkiina waxaad igu tiri soomaaliya joogaan iminka hooyaday walaalay soomaaliya joogaan aniga falkaas sameeyey darteeda qaab loo marsiinooya iyaga maxaa soo gaaray marka iyaga maxaa lagu sameeyey ayaga dhibaatooyin badan ay la kulmeen hadda wiil walaalkii xataa waa la la'aa inay wateen ciidamada al-shabaabka lama yaqaano mid way xirteen wuu u xirnaan jir iyo hooyo way u xirnaan jirtay qaaka hadda way fiican yihiin waa tahay marka dhibaatadaasi adigana kugu dhacday faamilkaagana la gaarsiinayo kulley qadarta eebana way ku dhacday laakiin adna sababteedaad lahayd marka maxay kula tahay baad u malaynaysaa markaad dhibaatadaasi eegto faamiligaad gaarsiisay ee madaxaaga ay ku dhacayso ma waxun baad samaysay mise wax wanaagsan baad samaysay ani mid haddaa fiiriyo wuxuuna sameeyey waalidka iyo hooyada walaalaha iyo hooyada laqa qabsanayo way dhibaysaa mid haddaa fiiriyona wax fiicana sameeyey aabe iyo ciddeen wax la-aanay ahaayeen marka saasoo ogolaanino waa tahay adiguna waad ogeyd in ay marxaladda soomaaliya adag tahay ciidamada ajanabiga meesha jooga la xiriirkooduna uu dhibaato badan keenayay marka miisaankaad isi saartay inaad aabbaha badbaadiso oo aad arrinta ninkan ka ogolaato iyo cawaaqibka ka dhalan kara weli ma xisaabtantay mise waxaa markaa kula weynaa xanuunka aabbo xanuunka aabba ay la weynaa waa hagaag marka reerkiina hooyada markay ogaadeen waxan iyo dhacdadan dhacday ma ku garab istaageen mise waxaad kala kulantay inay kaa hor yimaadaan oo ay ku canaantaan maya hooyada iyo walaale aadi ii garab istaageen markastana way iisoo duceeyaan qur-aanna way iisoo akriyaan hooyada iyo walaaleyna way fiicayiin waa tahay haddii aan ku weydiiyo kolley xamar adiga ogaa ciidamada amisom iyo dadkay daweyn jireen iyo xiriirka ka dhaxeeya ma dhici kartaa in dadka qaarkood ay isweydiiyaan inay jireen hablo kaloo sidaada oo kale ah oo ay ciidamada xiriir la lahaayeen maya ma jirin ciidamada markaa kasoo tegaayeen ma jirin halaas ma jirin 100% ciidamada amisom way fiicnaa asiga keliya qaladkaas galay dadku way daaweynayeen nabadgelyo iyo daawo bay bixinayeen
marka maxaad dadku u sheegi lahayd si dabcan inkastoo ay dadku isku mid ahayn oo haddaad codkaaga soomaalida u gudbin lahayd maxaad dadku u sheegi lahayd أنا أرنتي واحد بين أمان وحامل وهلا المنان سومالنا عند قفنا أم سومالي أم قفنا هذا قدر كمرة وشرف وعشرف أكرب أكرب إنه يدعي أرب أبي أبين الله نحرسته ضدك إيجي فكر فن إن أقفن أهينا ميه أنا قفن وأسكت أنا أهي قبلها أوفي عنا fadlan la socod daawade qaybta labaad ee qisadan